qisadani waxa ay noqon doontaa mid ku tusisa waxyaabo badan oo aadan ogeyn isla markaana waxaad ka dheeraan doontaa wax waliba oo xumaan ah waxaadna ku dadaali doontaa wanaagga. qisaduna waxay u dhacday sida tan. warsan waxa ay ku dhalatay isla markaana ay ku soo barbaartay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxayna wax ka baran jirtay dugsiga sare ee Banaadir. da'deedu waxay ahayd 20 jir waxayna ahayd gabar alle uu dhameeyay oo qurux ninkii arkaan oo indhaha ku dhuftaana waxa ka dhaadhici jirtay in ay tahay gabadha kaliya ee ugu quruxda badan dumarka jooga deegaanka ay ku nooshahay warsan. warsan waxa ay ka dhalatay oo ay ka soo jeeday qoys tujaariin ah waxayna aad u necbeed in ay la haasawdo wiilasha saboolka ah waxayna had iyo jeeraale ku hamin jirtay in ay mar uun hanato wiil hantiila ah oo la qaybsato macaanka nolosha iyadoo waliba ahayd gabadha qure ee wiilasha ay fasal wadaaga yihiin oo mid waliba si gaar ah u jeclaa jacayl waliba aan loo ogeyn. wiilasha oo isugu jiray tujaariin iyo sabool ayay mudnaanta siiday warsan kuwa qaniga ah halka kuwa faqiiriinta ay gooni u faquuqday. xamse oo ka mid ah wiilasha sida aadka u go'doomiyay jacaylka warsan isla markaana ay isku fasal ahaayeen kana soo jeeday reer sabool ah ayaa u babadhigi waayay kuleylka iyo karkarka uu ku hayo kalgacaylkeeda waxaana uu go'aan ku gaaray inuu soo bandhigto jacaylkiisa. xamse waxaa ku siyaaday kuna saaqmay suntii cishqiga habeen iyo dharaarna hurdo way ka haaday. hunguriga daayo maba haweysanayo waxaa laabta degay dheemantii hablaha waxaa looga heesaa halka ay ku nooshahay. xilli ardada laga fasaxay iskuulka ayuu xamse baadigoob u galay jacaylkii jiifka ka jaray waxa uu meelaha heehaababa waxa uu mar kaliya labadiisa dhaayood ay qabteen warsan oo sii laafyoonaysa meel aan sidaa uga fogeyn. xamse oo isku yiri tani waxa ay ku tahay fursada qura ee jacaylkiisa uu ku soo bandhigi karo ayaa beegsaday wadadii ay warsan ku socotay isagoo socodkiisa laban laabaya ayuu garabkeeda la sinmay waxaana uu ku yiri warsan abaayo waan ku salaamay waliba hadal jilicsan ayuu sidaa ku yiri. warsan oo cod macaan isla markaana dabacsan u dhinaceeda ka soo yeeray ayaa jaleecday misna waa xamse oo ka mid ah dhalinta ay sida aadka u yeesto faqriga darti markaabay ugu jawaabtay waan ka qaaday ee maxaa ku daran. xasan oo mar ku farxay salaanta laga qaaday marna ka naxay su'aal kulul oo la weydiiyay ayaa mar qura afkiisa waxa ka soo burqaday erayo uusan horay ugu talagelin hase haatee uu ka keenay jacaylka warsan. wehelkii naftayday waxtarkii qalbigaygaay warsantii edeeqday way aragnimadiyo wanaagii asluubtiyo waxid kugu manaystaa wacd waxaan ku mariyaa waqtigii la joogaba waxyaha jirkaygiyo wadayaasha dhiigiyo wadnaha ku tabaye. intaa haynoo joogto sheekada qaybteedii hore qaybtii ugu xiisaha badneedna waa ay noo soo socota. waa xasan sheekh cumar oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.